nin taajira ayaa masjidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla barya markaas kiina albaabkii intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annakay ahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataaye maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhaxaysatid ayaa la doonaya inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysay ilaahay aad ugu dhex baryaysay eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula bax aad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaayo ilaahay bay maqlaaya yaay arkaayo laa tudrikuhu alabsaar wa huwa yudriku alabsaar wa huwa allatiifu alkhabiir khalqigiisa meel kastay joogaan ka u jeeday arkaya waa ilaahay waxba ilahay kama qarsoodo yaclamu sira waakfa waxa laabtaada ku jira waa og yahay walaalkay adiga sirta inay dhex martay ilaahay waa og yahay safwaan binu umaya ayaa cumayr binu wahab ninka la odhan jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina oo maka ay joogaan waa zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waqcaddii dagaalkii badar baa laga soo noqday 70 gaaladana waa laga laayay 70 gaalo ana nebigu waa qafaasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo cumayr bin wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 70 ka la xidhay madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada maka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeday wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcaddii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka cumayr bin wahab baa yidhi haddaan maanta anigu aan heli lahaa dhibtaa maxamed uu noo geystay iyo guusha maxamed maanta uu naga helay tu aan u adkaysan karna maahine sumcaddii qureysheed buu dilee haddaan heli lahaa maanta dayn laygu leeyahay cid loo raaco ubadkaygaa inay iga daycamaan aan ka baqayana cid igi kafaalo qaada haddaan heli lahaa magaalada madiine intoon tago xeeladaan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygii baa iga xidhanoon itusa waan odhan lahaaye muxamed anigaa soo khaarijin lahaa buu yidhi safwaan bin umaya ayaa ka faa'iidaystoo yidhi ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkaygay ka mid noqonayaan daynka lagugu leeyahayna aniga ha lay soo raaca buu ka yidhi waa labadoodoo keliya maka iyo madiine masaafada u dhaxaysana waad taqaanaan la 400 kilomitir uu soo socday aalaadkan zamankan imika isku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas uu soo socday madiinu soo galay Umar bin Wahab isagoo seeftiisa jeeni qaaran mar ali markuu Umar bin Khattab baa yiri Umar bin Wahab ha shaytaanu min shayatiin quraysh weeyaane seeftiina waa ka jeeni qaaran ee qoorta ku sitee ordo nabiga ilaaliya buri nabiga noo ag joogo nabiga ka ilaaliya sallallahu alayhi wasallam shar uu socday khayr uma socday
markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yidhi nabi allah Umar bin Wahb baa soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa buu nabigu yidhi soo galiya loo soo galiyay maxaad u timiday buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameysaan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yidhi oo ka wada hadalno markaa buu nabigu ku yidhi seeftana qoorta ku sideeta maxay tahay hadda wuxuu yidhi qabbaha allah buu yidhi ilaahay haba duleeyay seeftane ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saudigi 70 naga laayay 70 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa buu nabigu ku yidhi fariisa buu yidhi arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigiyo Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeynii geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa Madiina intuu tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna daynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabuu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan bas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بيوتمد وهل كان فرديا رسولنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى هاي أبو بكر هو صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسا نستوى مدحا بشكسين لها بيتري مركز إسكان نقطيب أبو بكر نبي يا رسول الله مينكو أركين مي أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل هو حكوا أركا إيش هو حكوا أركا من لنا هاي مي أمرك إلهي هو حكوا أركا دكتو أحكم مغلا مي دكتو أمرك إلهي هو بانتاين مقشو نقطة إنه سعوت إلهي أمرك يسوي بانتا خالق وإلهي marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslima laga raba ilaahay inuu dhabu garto tasarrufaadka caalamka ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisa oo dhaba noqo